raaxada qalbigu noloshan daahirka ku hagaagta kuma xidhno raaxada qalbigu waxay ku xidhan tahay xidhiidhka adiga rabbi inaga dhaxeeyo inii hagaaga waa dhaweyto social media-ga waxay soo dhigeen maqtac naag faransiisa oo da'deeda lagu qiyaasay 90 cajiib waxay tidhi yani hadal nin sheekhaana dhagaysiiyey nin naag fadhiyey oo sheekh ahaa uu lilmay lilmusii daayey hadalkeygii markuu dhagaystay nicmadda maqalka ayaa yaqaanaa qofka maqalku ka maqan yahay baa yaqaanaa nicmadda aragga ayaa yaqaanaa qofka araggu ka maqan yahay baa yaqaanaa nicmadda hadalka ayaa yaqaanaa qofka hadalku ka maqan yahay baa yaqaanaa nicmadda hurdada ayaa yaqaanaa qofka habeenkii aanan jiifan baa yaqaanaa nicmadda ubadka ayaa yaqaanaa ninka bilaa ubadka yaqaanaa Cameroon bari annagoo ku baxsan magaalada Ngun ay yiraahdaan Ngun ayaa la nagu yiri masaajidka boqor baa imanaya maanta boqor haye marka waad salaamaysiin marka la salaamaya la nagu yiri kabaha la saaraa waana la gurgurtaa Ali ibn Abi Talib gabdhaha markuu ka warramayay wuxuu gabdhuhu waa saddex muuminad gabadh waa gabadh muuminada muslimada hoggaansan oo ilaahay u hoggaansan الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال صلى الله عليه وسلم qur-aanku waa mawcido waana tadkiro waana bayaan waana balaaq waana manhaj waana sharci qaabka ummadda wax loogu sheego qur-aankan ka qaadanaynaa walaalaheen jazaahum allahu khayr waxay cunwaan uga dhigeen kelmaddan usradda wanaagsan suurad qur-aanka ilaahay ku taalla haddaad kala furtid hal mowduuc keliya kuma koobna inay ka hadasho bal mawaadiic fara badan baa suurad walba ilaahay kaga hadlaa suurad keliya ayaad arkaysaa marna waxay bayaaminaysaa ilaahay cadamadiisa mar waxay ka hadlaysaa ilaahay nicamtiisa mar waxay ka hadlaysaa aakhirada mar waxay ka hadlaysaa adduunyada mar waxay ka hadlaysaa xuquuqullah xaqa ilaahay nagu leeyahay mar waxay ka hadlaysaa xaqa addoomuhu ay nagu leeyihiin mar waxay ka hadlaysaa jannada wamaa fiiha min annaciim mar waxay ka hadlaysaa cadaabka wamaa fiihi min alaliim walciyaadu billaah marka usradda wanaagsan waxaa ka horeeya fardi wanaagsan deedna usrad wanaagsan deedna mujtamac wanaagsan nolosha bini aadanku qaabkaasay u bilaabantaa fardi wanaagsan inuu qof walba horta isagu wanaagsanaado isagu hadduu wanaagsan yahay isagaa markaa qofku sameynaya mujtamaca wanaagsan usradda wanaagsan isagaa sameynaya usradda wanaagsan nolosha bini aadanka waxay u tahay saldhig ba u tahay sees waxay u tahay isku xidh inay dadku isku xidhmaan
waxa keenaya waa usrad wanaagsan. usrad wanaagsan waxa ka horeeya fardi wanaagsan, qofku inuu keligii wanaagsanaado. adu keliga maxaad ku wanaagsanaan? usradaaduna maxay ku wanaagsanaan? mujtamacaad ku dhex nooshayna muxuu ku wanaagsanaan? inteenaasi waxaan ku wada wanaagsanaanaynaa waa haddaan noqono addoommo ilaahay oo wanaagsan. daadooni noloshan adduunyadu keli ahaanta iyo usradda aad ku dhex nooshahay iyo mujtamacaad ku dhex nooshahay intuba inay hagaagaan oo dad wanaagsan oo adduunyo wanaagsan haysta oo nolol wanaagsan ku nool oo nabad wanaagsan haysta haddaan doonay inaad noqotid waxaad ugu horreysay la rabaa inaad noqoto addoon ilaahay oo wanaagsan. cabdii kulli kamaa uriid akuunu laka kamaa turiid baa ilaahay yidhi xadiis alqudsi. addoonkaygiyow sidaan anigu aan kaa raba ii yeel, sidaad adigu iga rabtana anaa kuu yeelaye. adigu sida rabbigaa uu kaa raba yeel, sida naftaad u rabta ha yeelin, dadku siday kaa rabaana ha yeelin. waxaad eegtaa rabbigaa wuxuu raba eeg. ibraahim alkhaliil calayhi salaam, nebi ibraahim ayaa waxaa u yimid jibriil calayhi salaam. malakuljibriil baa u yimid oo ku yidhi adduunka waxaan u imide maanta allaha salaamka ayaan salaan ka sidaa, bishaarana waa sidaa, oo addoon waxaan u sidaa addoon ilaahay uu gaadhsiiyey maqaam addoommihii ka horreeyey aysan hore u gaadhin, oo la gaadhsiiyey maqaam la yidhaahdo khaliilka ilaahay tabaaraka wa tacaala, ilaahay saaxiibkiisii. markaasuu nebi ibraahim calayhi salaam jibriil buu ku yidhi addoonkaas haddaad ii sheegi lahayd aniguna waan u adeegi lahaa buhi, waan u khidmayn lahaa. markaasuu yidhi yaa ibraahim addoonka maqaamkaa la gaadhsiiyey waa adiga. maqaam waxaa ilaahay ku gaadhsiiyo ilaahay kuu gartay inaad u qalanto. waittakhada allahu ibraahiima khaliila, inaad noqoto ilaahay khaliilkiisii. khaliil saaxiibka ayay ka sii xeel dheer tahay. khaliilkana waxaa ka sii xeel dheer xabiibka. lidaalika nabigeenu calayhi salaatu wasalaam xabiib uraxmaan buu ahaa, ibraahimna wuxuu ahaa khaliil uraxmaan. markaa jibriil calayhi salaam baa ibraahim ku celiyay su-aal labaad oo wuxuu ku yidhi yaa ibraahim maqaamka maxaad ku gaadhay bal ii sheeg. kulle acmaal maqaamka ilaahay baa ku gaadhsiiyey, laakiin asbaab maqaamkan lagu gaadha ayaa jirtee, bal waxaad maqaamka ku gaadhay ii sheeg buu yidhi. sifaadka aada is leedahay maqaamka waad ku mutaysatay in lagu gaadhsiiyo darajad khaliilka ilaahay, maqaamka bal waxaad ku gaadhay ii sheeg. markaasuu ku yidhi 3 khasladood baan u malayn buu ku yidhi 3 khasladood. khasladda koobaad waxa weeyaan wuxuu ilaahay aniga ii ballan qaaday kama walwala buu yidhi haddeetool khalaas. arsaaqadda ilaahay baa ii ballan qaaday, arsaaqaddu walwal iguma hayso. ilaalinta ilaahay baa ii ballan qaaday, ilaalintu walwal iguma hayso. nabadgelyada ilaahay baa ii ballan qaaday, nabadgelyadu walwal iguma hayso. nolosha ilaahay baa ii ballan qaaday, nolosha walwal iguma hayso. waxa ilaahay uu ii ballan qaaduu yidhi shayga aniga igu hallee addoonkaygiyow waa ka walwal beelaa buu yidhi khalaas. shayga labaad waxa weeyaan marti iima timaado. wuxuu yidhi weligay cunto ma cunin ilaa haddaan cunto cuno marti baan la cuntaya oo marti baan raadsadaa buu ku yidhi. martidu iima timaada anige bal aniga raadsado la doondoona cuntada inaan maaragtaane marti fiican la cunto. nebi ibraahim calayhi salaam 3 malag oo suurad aadamiya leh ayaa marti u soo noqotay baa la yidhi. waa saddexdii malaga jibriilna uu ka mid ahaa ee loo diray halaagay qowmu luut. 3 malag markay ibraahim u soo galeen suurad aadamiya bay leeyihiin. ibraahim calayhi salaam ma dhihin ayaa tihiin, halkeed ka timaadeen, ma soo cuntayseen, ma odhane xerada intuu ku laamay ayuu dibi yar oo dhaylo ah ayuu ka soo saaro markiiba birta ayuu u mariyey, dabkana uu saaray. innanka maanta marti hadday noo timaado waxaa laga yaabaa inaan ka bilaabno nidhaano
مسوق قضيسي وصما هذا علامة البخيل علامة البخل ويان بالليل مرتي الرد هذا سو تاكتين كنت هذا بيا مسوق عبتين شهميني كان مسوق قضيسي هذا علامة البخل وين إن البخيل تهي تاسع دليله إبراهيم عليه السلام ما أورن حاجات كتمادين مسوق عنتيسين أياتهن مدهن وحويري سلامر كيف أو فريسيو جوجل في عم بودجي حردينا وكنا نوضو دبي يرو دايلا أنتو أصلا صاري بوقلي مركين الضبك وصار صلي بوجا صادقي وهردجي مركا وكيلا القرآن كأنه أقول شيء فجاء بعجل حنيد فجاء بعجل سمين سمعين وكبقي تدي بودجي يا قعمه جينا يكوي اللابين هنا وساسة قعمها ولي اللابتين وما بوجه ذا بعنتظه مركاسو نحي وحول محل عن عنتظه وحير هذا أنكو بشر مني هنا ملايك بانه إرجع وحنا ربنا وصادري هذا كان بشارة كو بشارين إننا قوم اللوط نوحنوس إن عذابه وانهلاك النبي هذين قوم اللوط وصرد وناكسن وإلهي علاقة له أي مرتئ النقدين إياتهن لمده هنا نافكي وقش إصلاح وله وقف عناب وقاضب برته أمريي مركز عديين إلى ملائك بانا هنا ونحي النبي إبراهيم عليه السلام حاجات سعتان بوكيري مركز سيد هذا أنا بشارة كو بشارين هنا والنبي بقول لنا يا نبي إسحاق بيقول ليس سارة إسحاق قداشي سنة يعقوب بقول لنا دونه فبشرناه بغلام عليم وكيله قرآن كلها فبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين مركز النبي إبراهيم عليه السلام بقول دادي سكر بيودافته مركز علمها الله بشارين أيو سارة أو لجوبتين وحاسك ساحيدا يدنا سقاشن كي كله ده هيبان ليدي إلى أن لبدو حلقة أي سودا قارنا ما هيستان أولاد إلى حلقة وحين كو صوب بربارين إن نقدام بلا أبد سارة أو مركز أذيقيسي وهذا الكلام مغليسي وهلك أيكو أي فرديانا صداس أنا كفوقين آيات قالت يا ويلتا أألد أنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجاب إن هذا لشيء عجيب قالوا وتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد وحيتني مركا مانو قدها سعد الله يبيتني مركز مانو داس وإلى حلقة بلا أبدا هايور لا يقول يقان إسلام أنا دلينين odagaygana waa kana waa duq gaboobe madaadana ilmakuha layna malaa'ikti baa u jawaabto ku tiri ma amarka ilaahay baa la yaabantihiin baa lagu yiri ma amarka ilaahay baa la yaabantihiin marka horena ubadka ilaahay bay naga hayay hadana ayay nisiye allah bay nisiye lana amar ilaahay baa socda marka hore ilaa gadaha aad soo gaadhaan inaad bila ubad bila ilmo noqotaan ilaahay baa qadaray da'daas inkoo soo gaadhay inaad ilmo aad heshaana إلهي باقو آميي دم أمرك إلهي بالله يابتين بالله يدي رحمة الله عليكم وبركاته أهل البيت إنه حميد مجيد مرقاسي ملائكة ولي بأب بشاريين نحريس إيه بركو إن الريار كان دوشو أي ساران تهي إبراهيم عليه السلام صفة الله بعد إيه مقامك وكوغار إنه نقض خليلك إلهي وحا كمده وحول ولي عنتا معونين هدان عنتا عننا وحان لعن تجري بودي مرتدى الرات سجري بودي إن كنا مانتا مرتدى وان كان حينا دادكي وروناك سنانا مرتدى ويكون فرحيين مرتدى صور بيلهايين إنك دقن كيني هوري يسو جرين كاها ميلها قاركونا دقن كاس ولي وابكو حدايا وحا جري إن دادكو أي وقون دايان مصاريف دان أو مرتدى اللوغو تلقالو إن مرتدى مانتا وينغو يراتي مرتدى محاي نغو يري متقانا مرتدى مركي نغو يراتينا بركات كيبا نغو يراتي لأن مرتي أقلك أي صوغ شبال ليدي أرزاق ديدين وإلا صوغ شا تدك أو صوغ لين والله قد مدافع بالليدي قال ده أو صوغ لين بإلهي ريرك قد مدافع يا رزق وقنا وإلا صوغ لين لا بشيء بقى إنه بطي الزمن كان هذا بطي لما ناسي واحد لا دقال لما يعني ما تقانان أحاديث كان نبيك وعمل فالكيسة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه بان نبي يقول قفك إلهي جعل قفك إلهي الرميسان آخر إني جرتنا الرميسان بو نبي يقول يا هي قفك مرتدي سهم موصوها كراميو
labada xadiiska lagula dagaalamay maanta waa labadee ma taqaanaa waa maqaaxiyaha iyo hoteelada weeyaan labada markay noo bateen ayaa dadka waxa ka baxay sifadii martida la jeclaanayay ee marti soornimada aan dhaqanka u lahayn ee martida lagu xisaabtamay martida lagu talagelayay ayaa maanta mujtamaciga nolosheeni ka baxday wadan Afriqiya al-Wusta u dhow oo la yiraahdo Chad ayaan bari safar dacwadeed u tagnaa anagoo jamaaca aqalada markaan booqanayna dadka ziyaaranayno rid baa la garaaci albaabka fadal baa lagu odhan fadal suudaanna waa la mid marka ninka ila socda ee wadanka u dhashay ee dadka ii geynayay ee daliilka la yiraahdo horu ka gala anu waan istaagaa marka waan xishoodaa waxay dhahay warma bilow dumar iyo ubadiyo markaasuu udkhul ya sheekh udkhul waa soo gala markaan galo kuraasi baa taala fadhi fiican baa yaala qof baa gudaha ka soo bixi albaabka loo ka soo galay shaah buu noo keenay biyo qabow buu keenay khudrad buu keenay buskud buu keenay liib timir buu keenay reerka iska ladanna waxayba ku keenayaan casiir tabiici oo la soo ridqay ku keenayaan inta marka la noo keenay cabneen fadhiisano ayaa iyuu odhanayaa ki yaraa maxaad doonaysaa inaad u socotaan ii sheeg markaasaan ku idhaahdaa marka naxnu jina liziyaarati ahl albayt عمك والدك أخوك مركز مرق فلان مرق من البيت مرق مركز أنكو هذا نحن نسمي مرق ما خرج من اللحم قال وأيضا هذا خرج من البيت مركز أنكو هذا مرق فلان فين مرق مرق ميم راء قاف مركز أنكو مرق أنا كو حاولنا قانا دول كيغاس ما خرج من اللحم فوق هيلبك كبحة كنا قريب كبحة بيودي مركز أقول ما حوقتك نوجع دليسي وأنت أو دقيقة نوفريسي وحي كليهن عرفي وضن كان واحد جرا وده يقول ريارك مركو مصاريف تقول لي بايو أنت مرتدنا وقدرة بالشاس صورنا إسلام توحي كو الله بريء سايو وده يقول إلهي أقل كانوا مرتز هو قليو مصاريف تريركا أيها وحا كمدا مرتسوركي مرتدا قولكا وحا لودسي مرتدا تواليت كيبولية حتى صدح بين هداد ربطين ناس كجيفتو واتجيفن عنتدنا والله سوقادي آياتها لقران مايو halka inagana maanta inaga marayso haday adeeradeen miigay nooga yimaadana mahawdka hotelka uu tilmaamay kay nooga fiican waa kee hotelka jiifo ana lacagta bixinaya ya akhi barakaadkii baa nolosheena ka baxay maanta ku dhaqankii ahadiista nabigeena lagu dhaqmaayo inaga dhax baxday maanta usrada wanaagsan waxa lagu yaqaanaa usradu diin bay ku dhaqantaa diin bay daneeyaan ibraahim al-khalil alayhi salaam wuxuu ku yiri خصلة اللبادي وحنو ملين إني تحي واتامرتي صورك إلهي ما نكو أمان النبي إبراهيم القرآن كان لغو شيء خصلة صدحات وحيري أن ملين يو إن المقام كخليل إلهي إن النقض أن كم متهستي وحويان لبا الرمود لما سوق قد بونادان أمر والبوحان فيريا تو إلهي رالي وكياه تقديم أمر الدين من أمر الضروريات من علم الولادان وأنا مر والبا أظهر مرسا أمرك إلهي ورالك كياه صلاة دي شقدا كل مي صلاة ظهر مري صلاة دي يدنت الريركا كل أنت صلاة ظهر مري صلاة وأمر إلهي عز وجل أمرك إلهي هلك أدو أدكتد أيوم بعدك أن إلهي كل أوجو مركا أسرد وناكسن وحكون نقولنا مركا هري وأنا نهانا أضون إلهي ونكسن أضون إلهي ونكسن سيد كن نقول هيسا وأنا إلهي كو أبوري أدو قاد معرفة دبوية لتا معرفة أنا والله برتاي وقو معرفة والله برت إلهي برو هداد برن ما بري كريسي هداد برن إلهي مع عبود كريسي هداد إلهي برن مرة ليك كريسي برشدا وحول بكه الرئيس وما خلقت الجن والإنس إلا
إلا ليعبدون أي ليعرفوني بن ابن عباس رضي الله عنهما برشد إلهي بوحل بيدا كوريسا داد إلهي براتو أياد عابدي كريم حد بينت إلهي أدق وأد عابدد أيا إلهي أدق أنا ما ركتاني نولش أدويد تاخر كوتوسن لذلك الدين تين الإسلام ماشي كبل عبنتيه فرسو ومد وحو النبي كبل عبين وكدع دعيو من هو الله من هو المنعم ككون نعمة واكما ككو أبو ري واكما كواحد ستكسي واكما داود عليه السلام أيا يا رب سيكو شكريا بليشك يا رب ساكو شكريا يشك نعمة هذه بيجا كربتة مركز قرشة أب قرتي إن النعمة ذي دوش هذا أي كبدتي تاسع شكريا يجيب إلهي كويري الفرس منعم نعمتي سيب إلهي هريرة هنا قد جاي أمني أرزاقدي عافماتك من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها قفك واغو أبريب النبي عليه الصلاة والسلام إساقي إسردي سير يركي سي أو نبض حيستا جركي سي أو عافمات قوام يلنا أين حنونين قوت اليوم مالك وحعونيين حيستبو النبي يري نعمة دي أدوية تعالون قفك سيلاحي واسي صدح داس أمني يا هيا الله بهيا هيا دنا بتسوقد على قرن هيا دنا بتسوقد سبحان الله هيا عافمات كأدونك هيا عنا أدونك صدح داس حديث كان النبي كور جدا دينتين وحي نقدر دعسنا برتي أمني إلهي مويان عد كلام هيس عافماتك الله مويان عد كلام هيو أرزاقد الله مويان عد كلام هيس صدح ذا قفك واجو وقبر يبو النبي يقول لي الله بريستي نعمة دي أدوية تعالى وده وحبك كمان مغنب رسولك عليه الصلاة والسلام كان نعمته أنت نجم مغنها إيجنا أنت عن هيسان هوس أنو إيجنا هوس دتك ونكسن وحلقوا يقانا الله منعم كي قدريان مر والبا نعمة ما قدريان منعم كي قدريان منعمك منعم قف بني آدم وصد هذا وأبال مالين كل يكون قال يد ولا كشكين ودي اللوبين إلهي جل وعلا يمسونون نعمة أبال النو قال يمس أرقي مقلكي عافماتكي أرزاقدي أولادي نبضي إسلام نمدي ووحول بكسي وين إسلام نمدي هدي كل جيل لقوسيان وح كلا بلقو قدرين يدا كوكو فلان با شكر جيجا بتكبر حين بيدا نبي الله موسى عليه السلام باري الله كلمة كوكو بريسي لا إله إلا الله دبل لقوي حرب يا دوما هجوا ونكسن كلمة نوي وديدادين تواني جاي قاريسي مرقاس إلهي يا موسى تضبط عر يتضبط الدول يوح كجرة مخلوق هذه كفد ميزان كلا جساره لا إله إلا الله أنا كفدك الله جساري لها لا إله إلا الله بكعس لا هيد بلقولي نقدر إسلام لماذا وين نقدرون هوسو يقولون تكون نعمة دا تضموقتين ما أنت إيجان لكن تبادلك ما إيجان نعمة دا موقتا والله قابل سنكرا والله نقبل صدينا نعمة دا موقتا قرآن كإلهي كل شيء فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم وقال هذا إلهي مركو كورما يوحيري حوله كان ترى هذا بدل لسيني يا أولاد ودن عاد دين عوال بان كدقنها إيجي ما النبي قال لقولي إنما يريد الله ليعذبهم بها وحا أذرك يا سيد النعمة هريرها أن كدقني وما نسين با إلى هيدي إلا حدان سيني وحا نسين با إلى هيدي أدونك دوش دينا كو عذابني
حق الظاهر كنولش موقال كيغا ولا قابد صدا لكن راح هذا لقى بد صدي أقول راح هذا قلبك نولش ظاهر كوكوها قاعدتكم ما حدنا راح هذا قلبك واحد يكون حد انتهي حديرك هذه ربي اللي قد حيوني هجاجا وهذا ويتو سوشيال ميديا واحد صادق مقطع ناق فرنسيسا وده ده اللي قوي قياس سكاشن عجيب وحي تدي يعني هذا نشيخان الدقيسي نأكفر دي وشيخها أقول الميل الموسيقى هذا الكيك مركو دقيستي لغة عربية اللي قلت ترجمة يعني وحي تدي وحنسكت دينا إن العكس من العق واسمين العقتي لعقتي وحن كل سنة تدي أقل بأقل كأدوية وقو قيمة بناي وقو قرح بنا ما كل سنة ماتريال ألابتا أقل هذا نحتاج لنا وحي إنه أنكدقني ألابتا كقيمة بناي كقال السنيد أيان نحتاجني تدي لكن نلشي أسرة ده إسحاقتي أسرة دي سياسة أقل هذا كمان ولا بيتدي مجتمع إسحاقتا وضي إسلام عرورتي يوحي دلنا أسقط ضوبا ما هيستان ما هيسني تدي ألابتي أقول قال السنين أقل هذا وان نحتاجني لكن راحت قلبك ما هيسني تدي داودي أدوية وقو قيمة بنينا واسمي سني دكتور دي أدوية وقو قال السنة يا دكاتير تي أدوية وقو قيمة وقو تيدا في عينينا والله صوبحني عفمان ما هي نيتي نارتي جحيمة هدي أدوية جرتنا بيتري أنك أقول نحن الله سمي سنة وقعنتها لعكت نارتي كو سمي سنة يتري فلا تعجبك أموالهم هذا الكيجي آيات القرآن قبل اسكوك ولا مالين مالكو قيليس أيان أنكو جماعان جولة باكو قادنا السلام عليكم وعليكم السلام بتبارس هنا له هذنا وأنا مسلم مركا وأنا جيست هاي شيخو هنا له هذنا حبها نو شيء ها إله حقي سأنوغو يدرسو أنك حبنا مسيم بودي هذا الكاكا ورما ها يو وحسية رجال بيت ولاي وحسية ذاتك عاد حبا أنك إلهي نمسيه بيقول شيخ dadka asaa wax la siiyay markaas aan ku leeyahay ma waxaad raadinaysaa maxkamad marka ilaahay soo saarto soo saamahad ilaahay buu rabaa inuu dacweeyo Soomaa kuwii kala marka ilaa dadku isku mid ma isku ma jiraan inuu ba khayrka u soo go'day waraa waxa ku adunaga aamus annaka la hadla annaka dhageysanina khayrka markaas yuuti al-hikmata man yasha ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا جماعاتكم مركات سعوتة ومضى دح سعوته واحد نقول نسا طبيب بسأنك دخترك وفضل بماشي حرمي سوء يقعنا داودكم مناسب كان وقرا إلهي وحنا سوء نحمريي هذا الكوي كلا إسكدا يسقي وكو دووبي حلو قبل أبي نعمت إلهي بن آدم كان جيركو وكو أبوري وفي أنفسكم أفلا تبصرون أدبا مركا الله حال دير هذا أرقي يا نسي الله مقالك يا نسي الله هلات كان إلهي كورك يا بلاك إيشان أوكلية هدين لقايد هذا وحا وضن كان لعقتها لو نبا كلي قال له قصينا إله لقا صاروا ما يلي لا وضع يندونا وحا أدوك يا لودن مقالك كذلك إيشو هل كان مقالك أوقلا مقالك ارتيدو سنكو booska uu galay maqalku ma gali karo cunto kaliya qofku cunaya ka soo qaad halka baa la dhigo cuntadii isha marka horeysaba eegaysa isha maxay sheegaysaa haddii cuntada daqsa dul socda ka waramo daqsa dul yaalo ama baranbara dul fadhido isha sheegaysa gacantu ma sheegayso isha sheegayso ruuxa ka qaadade waa maxay cuntada naga qaad طيب cuntadii markii aragtay ishii way fiican tahay gacantu galiye ka soo qaad gacantu waxay sheegaysaa cuntadani ma kulayl ba mise waa dirimaad mise waa qabow gacanta sheegaysa haddii cuntadani afka ay gubi lahayd gubayso gacanta markiiba sheegaysa wuxuu leeyahay qofku waa kulayl cuntadu yar qaboojiya cuntadii waa normal kulaylna maaha qabowna maaha waa meel dhaxaad gacantii way soo qaaday
halkaa marka cuntadu ay marayso yaa sheegaya haddana sanku wuxuu sheegayaa cuntadani urti buu sheegayaa may udgoon tahay mise way bedelantay oo carfigeygii way ka tegay meesha hadday uraysa ka waran afka loo dhiibayaa marka afka waxaa qaadanaya shaqadiisii carabku wuxuu dhadhaminayaa ma qaraar baa ma macaan baa ma dhanaan baa bal xubin kastoo jidhka bini aadamka qiimaha ay leedahay eeg yaa ku siiyey gudaha halkaa cuntadu markay gaadho haddana warshad kale halkan ku rakiban oo ilaahay uu ku rakibay oo waxaad halkaa mariso dhan kala saaraysa waxaa cajiiba magnad baa ilaahay carabkeena uu ka dhigay magnad waxbuu qabtaa tin hal tin oo timo ah ma gaadha lagu leeyahay caloosha bini aadamka carabkaa soo tuura markiiba carabkaa waxa uu sheegayaa biyo intee lag baa carabka ku jira jamaaca beri waxay arkeen nin caagad 5 litir la yuusitaa markuu yarka joogaba uu ka badaa markuu yar joogaba uu ka badaa 5 litir waa la weydiiyey maxaa ku helay say wax u jiraan wuxuu carabka ay qalalay buu yidhi carabkaygii maadadii biyaha samaynayseen male buu yidhi haddaan 5 litir ee biyahan gacanta ku sidani waayo hunguriga engegay waan dhimanayaa buu yidhi inagu nicmadda ma qadarin maalina nicmadda maqalka ayaa yaqaanaa qofka maqalku ka maqan yahay baa yaqaanaa nicmadda aragga ayaa yaqaanaa qofka araggu ka maqan yahay baa yaqaanaa nicmadda hadalka ayaa yaqaanaa qofka hadalku ka maqan yahay baa yaqaanaa nicmadda hurdada ayaa yaqaanaa qofka habeenkii aanan jiifan baa yaqaanaa nicmadda ubadka ayaa yaqaanaa ninka bilaa ubadka yaqaanaa man yuqadir hadihi nicma dadna usluub caynkaasaa markaa raggii majliska jaadka qaylaya lagula hadlayo ninkii waan u fiirsadaa ninkii madaxuu sidaa u ruuxa markaan hadalkii u dhammayneen iskaga tagnay ayuu yidhi naga daba hadlo sheekhow hadalkii haddeer aan ku hadlay shaydaan baa iga keenay ii soo duceeyey buu yidhi shaydaan ba nahna ummadda khayr baa ku jira fitraddii iimaaniga qalbigiisa ku jirta markuu macsiyo ku dhaco qofka mu'minku marka dambe uu ka calaacalayaa limaada laana fitradda islaamnimada qalbigiisa ku jirto qofkan marka lagama quusto sidii ninkii malik binu dinaar allah u naxariistay abu cabdallah ayaa arkay nin muslima oo sakhraana oo khamri intuu cabbay dabeedna halkaa dhareerka khamrigu dhinacyada ka daadanayo sakhradiisiina waxay la gashay inuu yidhaahdo الله 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 markaa buu sheekhiyaabay saas u cimaamadiisii intuu soo qaaday ayuu u tegay oo markaa dhareerkiibuu ka biyey markaa wuxuu yihi magacii ismuljalaala magacii ilaahay afkan uu ka soo baxayo dhareerkan iyo khamradan iyo qurunkan ka socda maad ka bi'i sidaa markaasuu gacantiisii iyo cimaamadiisii intuu ula tegay ayuu ka bi'iyey baa la yidhi daedna markaasuu ninkii leeyahay sakhraan baan ahay sheekh iska kaydaa sakhraan baan ahay iga teg markaa buu sheekhu ku yidhi laa baas markuu ka masaxay yuu iskaga tegay gurigiisuu qabtoo sheekhii habeenka uu jiifsaday saqdii dhexe markuu isagoo jiifa ayaa manaam waxaa lagu yidhi haatifaan la hadlay haatifku waa dhawaaq odhaah ciddalena aan la arkayn ba haatif la yidhaahdaa wuxuu yidhi waxaa lagu yidhi sidaad adiguna dhareerka afkiisa aada uga masaxday adoo xurmaynaya magaca ilaahay afka ka soo baxaya ayaa qalbigiisiina khamriga looga biyo loo dambi dhaafay baa la yidhi saalix min asulaxaa buu noqday ninkii markii dambe saalix bashar bin alxaarith alxaafi raxmat ullaahi calayh aqalkiisa waxaa lagu ciyaari jiray habeenkii alrakhas dumarka iyo ragga intay isku yimaadaan ayay heellada iyo ikhtilaad baa ka dhici jiray saddexyaac nin maalqabeena buu ahaayoo xor ah oo xataa addoommo fara badanna le beriga addoommaa jiri jiray daedna markaa buu iridaysa soo taagay nin gadh leh oo duub iyo haybaddii islaamku ay ka muuqato bawaabkii albaabka u joogay buu ku yidhi ninka gurigan lama xor baa mise waa addoon isagiina markaa qasriga xagga sar u joogaa halkaa buu markaa ka fiirsanayaa markaasuu ku yidhi ninka gurigan leh ma xor baa mise waa addoon markaasuu ku yidhi maya waa nin xor ah beriga adduunka waxaa jiri jiray addoommo iyo dad xor oo axraara
meelaha qaarkoodna iminka addoomuhu way jiraan moogta waddanada Niger iyo Cameroon iyo Afrikada iyo dad wali addoomo oo la addoonsadaa jira Cameroon bari annagoo ku baxsan magaalada Ngun ay yiraahdaan Ngun ayaa la nagu yiri masaajidka boqor baa imanaya maanta boqor haye marka waad salaamaysiin marka la salaamaya la nagu yiri kabaha la saaraa waana la gurgurtaa waa ka dhageysanay marka horta yimaado masaajidkii markaan ku tukanay salaadii jimce ninkii waxaa la keenay fardo lagu ilaalinayo fardo lay qaar lugeynayaan qaar farda wataan isagana baabuur marshandiisa lagu wadaa waa la keenay salaadii markii laga baxayna meel geed hoosteeda la fadhiisiyaayo dadka way soo gurgurtaan anagu waxna ma gurgurane aayar intaan iska lugeyna baan salaamu calaykum saasaan u salaanay hadiyadna waan siinay markaa cimaamad iyo cadar iyo waxbaan siinay waxaan xasuustaa markaa ninkaas la noo sheego la nagu yiri 4 iyo 6 dumar uu leeyahay hayaal oo 6 galku ka keen 4 la garay markaas la yiri wama malakat aymanukum ba wadanka ka shaqeyso oo qaryadan miigeega oo dhan dadka ku nool oo dhan waa addoomo yihiin addoomihiisi weeyaan 4 markaa sharcigu u ogolaayay 6 marka waxaan ka wadaa macnaha adduunka hatta al'aan dul bay addoomo jiraan حتى موريتانيا والله شيء مركا بريغاس الضوما يدد حر أجري مركا ننكي بشر الحافي وحاوي مدى مركا ننكن أيا إلهي أصو دري إردي أقل كيسو استاقي لأن بوابك البابك أتاقنابو كل يهي نكن ما حربا مسواء الضوم مركا سكون ما هو حر شقابا الضوم له مركا سوما الحسد والروحي ها بس وافهمي بوري إلا واحد أقل كيس الرخص كدانس كالله يقول عيارايو وانين حرة وكتب ساقي بأمرك أدوش كفر سنة هذا الكأولة هم من مغلين لكن إلهي بقى قلبي يسجل عيي وصودا دقي نكي واش ماكي البابك وجوغي بوي مدي يبوري مركا مارك تاني نكي كل أحد لاي هو دقاقو حق أبو قبتي محوك هايري وحيقولي نكا محربا من سواء الضون ده محاد كتري ده waxaan ku yiri ninka aqalkan iska la waanin xor ah ده muxuu kugu jawaabay ده wuxuu igu jawaabay ha waa sababta aqalkiisa rag iyo dumarku ay ugu ciyaarayaan hadalkiiba markaa ninkii qub ku yiri qalbigiisa wuxuu yiri bal lastu hurran ana abdun buu yiri ma yihibu xor ma yihanu bal adoon ilaahi baan ahay buu yiri u ka daba dhaqaaqay halkuu maray halkaabuu maro halkaabuu ka weecday وكذب تبي راد كيسيبو قري وحال عقاب قري كذا صوب حيكون نقول نكاس دخل المسجد فتاب توبة نصوحة وجلس في حلقات العلم وأصبح عالما زاهدا ربانيا يقتدى به إلى يوم القيامة بشر الحافي بشر كي عقاقنا بالله قم قعدري عقاق بقري كذا صوب حي مساجد كو صوغلي توبت كاني توبة النصوحة علماء الله فريستو علمك كبرتي عالم زاهدة وإله علاقة له وإلى يوم القيامة علماء أي تقانو كتبت كقرا المقعيسو أيا إلهي نك كدقي وكلمة ذاك ليكو إصلاح لقى قريقا نسكلم حربة مسوا الضون إنك عندما أنت مجتمع عنا إيجا مسيدات حرباتين اللي يريد أن الله هاي مسوا حنون الله سيد اللي يريد الضوم إلهي باتين عبصودا يا كثير من الناس ما توحيون ليهن سوى اللي يريد حرباتين واحد دون تين بكوه الله واحد دون تين بأيجا واحد دون تين بعنا واحد دون تين سمايا واحد دون تين داوضة ساد دون تين دركة وحدة ساد دون تين تمها أجرتها مسلم هذا تهي مسلم معناه ما تفهمينه مسلم معناه واحد كده أنت هي المستسلم لأمر الله عز وجل وكي أمرك إله يسكت دي بيبي كده أنت مسلم كي هو جان سمي ما قاعد هكرر شيء نمرك
qof wanaagsan noqo qofka wanaagsan dad wanaagsan buu adduunyada ku beeraa qof xun dad xun buu adduunyada ku beeraa qaybtee tahay marka adigu saxaabatu rasuulillahi sala allahu alayh wasalam iyo ka wanaagooga nebi maxamed baa ka shaqeeyay calayhi salaatu wasalaam iyakuna waxay adduunka ku beereen mujtamac wanaagsan qof wanaagsan baa samaynaya usrad wanaagsan gabar saalixada salafu hadihi lumma ka mid ah ayaa ninkeedii oo kala hayay iyay saa u sii eegtay way la hadashay xaggeedu ku socotaa wuxuu yidhi waa noo kala hayaa kasbi baan noo raadinayaa markaa bay ku tiri ittaqi allah fiina aniga dhashayda ilaahay nagaga baq bay ku tidhi gaajada adduunyada aniga ubadkaygu waan u adkaysan karaynaa laakiin cadaabka aakhira u adkaysan kari mayne luqmad xaaraan aqalka iga soo gelin bay ku tidhi ciyaalkayga iyo aniga ilaahay nagaga cabso ammaanadaadii baan nahay aniga ilmahaygu gaajada ifka waan u adkaysan karnaa laakiin cadaabka aakhira u adkaysan kari mayno luqmad xaaraan aqalkaa naga soo gelin bay ku tidhi innakana zamankeennan waxay soomaalidu ay maraysaa waxaan ku cuninba waa la cunaay keen iyo gaajada unba xaaraana maxaa xaaraana gaajo unba xaaraan wax xaaraana mayo gaajo unba xaaraana dadkaasina waxay marayeen inay yidhaahdaan ilaahay ka baq dhashan iyo aniga ammaanan ku nahay ilahay baa noo kaa dhiibtay uu nagu kaa eeganayaa ilaahay gaajada ifka waan u adkaysan karaynaa laakiin cadaabka aakhira u adkaysan kari mayne luqmad xaaraana aqalkaa naga soo dhex gelin tacalluq intay ilaahay la lahaayeen dadkaasi cumar bnu khadaab radia allahu canhu gabdhaha markuu ka warramayey cali bn abi aalib buu ahaa gabdhaha markuu ka warramayey wuxuu uhi gabdhuhu waa saddex muuminad gabadh waa gabadh muuminada muslimada hoggaansan oo ilaahay u hoggaansan cafiifada oo dhowrsoon hayina dabacsan layinatun oo aada u dhibrinaysa wax walba gabadh hayina mutiica wey ninkayga adeecaysa layinatun oo dabacsan zaman adag markuu ninkayga la soo darsana ninkaygay u kaalmaysaa buu yidhi waxay ku tidhaahdaa xaaladdan adaga maanta nala soo daristay waan ka baxaynaa insha allah waan ka baxaynaa adkayso u dhabar adayg waxa yaruu u dhiibtay u yaryarayn isagay qalbiga iyo niyadday u dhisi waxay leedahay war waa adduunya waxaan inay adduunyadu ku qaadane meeshaan u soconna waa aakhire imtixaanka adduunyadu u dhammaadaaye sabir bay leedahay ninkeeda mid waa taa buu yidhi midda labaad waa weel buu yidhi waa weel xaggana wax ka cuni xaggana way kaaga dhali buu yidhi xaggana waxbaad ka siin calooshana ilmay kuugu qaali deedna ubadka unbay korin buu yidhi wax tar kalama le buu yidhi midna wuxuu yidhi waa khillun qumal khillun qumal khillun qumal waxay ka dhigan tahay berigii hore maxaabiista jeel lagu xidha ma jirayn ninka xabsi marka imka berigan xabsiyaa jira berigaa ninka lasoo xidhay baa la yidhi afarta addin baa laga xidhayay geed baa la hoos dhigayay timaha ku bixi jiray injirtaa markaa jirkiisa ku dhalan jirtay way dareeri jirtay markaa gacan uu injirtaas kaga qabto uu iska dila ma haysto maanta oo dhan isagoon bay cuni injirtaasi halkaabay ka cuni halkaabay ka cuni halkaabay ka cuni wuxuu ihi dumarka qaar wuxuu ihi waa qillun gumal waa injirta ninka maxbuuska dul fadhido gacan uu iskaga qabtana uunan lahayn ayay ninkayga ku noqotaa buu yidhi kii ilaahay adduunka cadaab uu la doono ilaahay qoorta u sudhaa buu yidhi waa naag iga teg kaa tegi mayso naa waxaan ii qaba kuu qaban mayso naa ubadka kori ma korinayso naa aqalka fadhi ma fadhiyayso naa ilaahay ka baqi mayso naa sidan iska daa iska dayni mayso naa iga teg kaa tegi maayo naa nabad ku joogi mayso mithaalkaasuu ka bixiyay cali bin abi aalib dumarka
كل قبلها إن شاء الله وكوه وناكسن إن شاء الله هذا لو إن لدى جسنا أن يكون خير كمقتا تكوبات بعد مركز نقول ساعة مؤمنة إلهي كحرا مسلمة هو جانسن وشرعك كل رغميسا وقولي كذا أنك بحين ووحين كذا إلهي وصودي بهالك بسم الله كله عفيفة دورسون وحتى باهيدا يقبتني كذا كقرصنيسا ما هينا dadka kala ma aha waxa la doonayo wax ka qarsato macallinkaaga ku qabaa la doonayo baahidaada inaad ka qarsato ina haddaad ka qarsan kartid ninkaaga baahidaada ka qarso baahidaada ilaahay u sheego hayyinatun wa gabadh dabacsan layyinatun oo jilicsan zamanka adag markuu ninkeyga la soo darsana ninkeyga garab u noqotaa sanad ka baxayna ilaahay baan haysanaa hawalwalin xadiidka lawaakii nabigu lahaa allah uu naxariisto buu nabigu yiri ninka habeen salaata leelka u kacay xaaskiisiina kiciyay hadday iska diidana biyo yar ku shaydhiyay gabadha muuminada ee iyadana habeenka salaata leelka u kacday ee ninkeediina kicisay ee hadduu diidana biyo yar ku shaydhisayna taana allah uu naxariisto buu rasuulku yidhi bal fiirso ducada nabigeenu calayhi salaatu wasalaam maaha duca sabaqat hamoodin inay socotay hamoodin qof kastoo xadiiska nabiga ku dhaqmo ducadaas way ku dhacaysaa lidaalika mujtamac wanaagsan allah inaga dhigo amiin hada qof wanaagsan usrad wanaagsan mujtamac wanaagsan sidee ku noqonaysaa markaa waa laga shaqeeyaa waa la diyaariyaa waa la dhisaa mujtamac wanaagsan imika dadku zamankan waxay yaqaanaan sida loo dhiso wadooyinka sida dhakhtarada loo dhiso sida bildinada loo dhiso sida warshadaha loo dhiso sida xoolaha loo dhaqo sida dhulka looga soo saaro khayraadka ku jira laakiin bini aadanka sida loo dhiso ma yaqaanaan lidaalika u fiirso waddan walba madaxdu markay doorasho ay galayaan waxay doorashada ku galaan erayo mataqaana isticmaalaan dalkan dhisayna horumar maxaa ka qabanaya dalka wadooyin baan nii samayn maxaa ka qaban waddanka oo dhan baan nadiifin maxaad ka qaban tacliintaan kor u qaadi maxaad ka qaban dhakhtaradaan bilaash ka dhigi maxaad ka qaban shaqo abuur baan samayn maxaad ka qaban faqriga saboolnimadaan la dagaalami nin madaxa oo fagaaraha isla soo taagay ma maqasheen dadku siday ku hagaagi lahayn baan ka shaqayn ma maqasheen carab samicta ما جرى لا مسلم ولا غير مسلم دad kan hagaajin mujtamacanan la ii dooranayaa mujtamac beentu ay ku badan tahay weeyaan mujtamacanan ku dadaalaya siday run sheegayaal u noqon lahaayeen nin madaxa Soomaaliya weli ma maqasheen ma jirto limaada maxay oran waayeen lana farsamada ma hayaan iyaku waa fanni cajiiba fanniga waxa iska leh al-anbiya alayhim assalaam thumma atba'a al-anbiya ba iska leh dadka hagaajinteeda dadka inay la islaaxiyo waa fanniga nabiyadu ay lahaayeen cid kale fanniga ma leh nabiyada u fiirso nabi ba adduunka iman dadka wada been sheegay buu iman dad buu wuxuu soo saaraya dad run sheegayaal dadka wada daalimiin buu dhex iman dad cadaalad sameeyo cadaalad falaya buu ka soo dhex saari dad wada khawanu iman dadkii khiyaanada badnaa uu ku dadaali dad wada amaanadu ka soo dhex saari dad wada jahliga oo jahalu dhex iman dadkii jahliga badnaa buu ku dadaali dad wada culum ka soo saari dad wada akhlaaq xun buu dhex iman dad wada akhlaaq wanaagsan buu ka soo dhex saari dad been ku wada dhaqmaya buu dhex iman dad wada rusheegayaal buu ka dhigi maxaa beddelaya markaa dadku hagaajinaya shariicada iyo diinta nabiyadu ay la imanayaan ayaa dadku markaa ku hagaagaan marka nabi baa la soo diray waxay ka dhigan tahay shaqadii dadku ay ku hagaagayeen ayaa nabiga ilaahay u soo dhiibay dadka in laga shaqeeyo ayaa awlaaya halka maanta aan leenahay wadalka ayaan hagaajinaynaa waxa ka awlaysan
إلا إرادة ضد كان هجاجرينا الذين إن مكناهم في الأرض ما حي سمعنا يا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور أمد أي استعمار الدلي سنيي مركان كقا نبا إلى هاي الاستعمار كي هي دلقي هي ماركتان ظلمي لقوها هي أن كقا نبا إلى هاي ما حي قبنا يا أوه الرئيس الله قرب عيني قبطان صلاة أوغيان با إلى هاي زكاة إلا إيمان يعني بحنيان صلاة وحق إلهي زكاة ومحي وحقوق العباد ويانو دتك ودك كنول أغنية دودو أو كلية هدي زكاة لقا قابو مساكين دودو لقو عليو قف ضاهن ومسكين ودك لقو أركي مايو دتك ودا أغنية ودا مال قوائم ينقون يان وعد فقرك اللي قولت دك اللهم يان ومحي والزكاة منكر كوحل لقو الزولية المنكر كي فحشاقة وصلاة مركا لأوغو إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وحا حن أخلاق ذا حن إيه نغنك حن إيه إلهي بني آدم كبا أيسر رالك أهين وحا لغزو ليا وصلاة أقاموا الصلاة أمد هدي إلهي استعمارك وكقاضو ودولك إلهي ودجيو تمكينيو شقاد أوغوها الرئيسي قبانا يانبا إلهي دي صلاة دي أوغيان وصلاة محي زولين إيسا صلاة منكر كيف فحشاك زولين إيسا وحا كلا إلا إيمانيان زكاة بحينيان با إلهي يري زكاة محي لا دغالميسان سبولنimada la dagaalamaysaan qof miskiin oo faqiir wadanka lagu arki maayo amaru bil ma'ruf fasaadka gaaladu ay wadaan ma soo galayo weeyaan ma'rufka ay fidinayaan ayaa ka moosay ba Ilaahay munkarka caalamka socda maanta munkarka gaaladu ay wadaan man iska muslimuusan nasna soo galay bali sheega يا وإن سوقلي قال إنه ما يمن لكن اللي يردني أيه كدينا يعني قال بكدينا يعني بتبايد مالين دحلايا ده هيرتي مقالة ده دفور كي وضع حيرتين وحنا اللي وركون مقالة ده أنا الله ما يابا وحنا الله يابي وياك وش يجي مي بان تجي واد دويت قال جري وحنا ركض دفور كحيرا قال جري حقوق أركي بلا يدا قعنتها كوس النبو كاركي يا شركة يد بدنيا كي مقالة جوجا مركا محات كلا يابي هدي كي ميجا جوجا ودنك حيرتي إذا كان هذا نوركم فكيف ظلامكم ويلي مثل سودانية أيام مثل كلو سودانية ويلي يا نور مقعيس النور بالي هذا مركا مد مصر يا أكفر ديو حليه هي نور نكا مقع عليه ما له ورن أذيك بكعب بيد مدوبة صباح مركز النور كينو مكان أقولها كان هذا نور كينو الظلام كينو واسدة والمجد كينو واسدة وعكونا جيل جريهني هذا دنع حيرتي محرم مقال كلا يا بنا مانت مجتمعي ولا بدلي محلك وجو بدلي لأن إصلاح كما شقينيس كما شغيني سيد مارك تاني إنه مضى خيرك وقارو ما دام خيرك أديك اللي دوني إن أتكشغيسو أتكشغيني ويدي منكر كقالدي يا منافقين تاي وضان باكو صوغلي صالح بعدر كيستاني صالحة وولي مسجد كصفق وركوتو كذا لكن ده شيء سوء دقن كيسا دقن كدو أن يكونوا ليهين ما دعدو ودعدا وهل كمان والدتي أبي هوي ويأويان waxayna leeyihiin dhalinyaradii baa naga xumaatay noogu duceeyay bay leeyihiin dhalinyaradoodu inay u hagaagto way doonayaan laakiin labada waalid iyagu inay isbedel keenaan ma doonayaan waxay rabaan labada waalid awlaadoodu inay u noqoto ka Muusa calayhi salaam wa Ciisa wa Muusa wa Haarun oo kale inay u noqdaan bay doonayaan laakiin labada waalid iyagu inay Nabi Ibraahim iyo Nabi Maxamed u ekaadaan diyaar uma سيدي إسماعيل أبيه وضاعي يا أبت افعل ما تؤمر نبي إبراهيم مركب برت لا دول بحين كيس قورع باللوجود سومهين ولا دول بحين مركز يا بني إني أرى في المنام وحنكم منام عنوكم برينا يا محد أورن لهي قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين
أب أمر كله بوحي بوكيدي أبيه هو يدي وحي ربطه إنه الميج إسماعيل وكلا إنه نقضه لكن لبدا والد إبراهيم وكلا إنه نقضه الديار معه إسماعيل إبراهيم بعد له إسماعيل هاجر تربية ديس يا تربية دي يا تربية دي إسماعيل هاجر تربية ديس هاجرته واتي علة كل كلا جا دقائق إنك يده كتيري إبراهيم ومحل كمان نقدر تونا جا تجيسا ها ما مر إلهي با ها إلهي نمد يعيا سجى نقول فرنا صعوبة كتيري تابع إسماعيل ده شيء الإسلام طريقة وريجي سو مقاحك شقين إيسا أما جاد يبين إيسا إسماعيل وكلا دل ميسي وقول تو جاد يبين إسماعيل دلي فرمحي دلي ده كل صباح ده يجيبنا يا دلي هلا يدا بارت جاتك يدا يبين إسماعيل نتبع مالين يدي إنك يسيبو كوري أبو هو يدا iyo walaalaha dhamaan waxay leeyihiin been badan ninkani been badan marka dhanba ku wareerisay beenta iska daa markaas hayaan waayahay dibdama been u sheegay maayo waa ku yar hooyadiibu been u sheega walaalihiibu been u sheega reerka dhanba been buu ku iskool ma tago meel been odaygii baa markaa odayaal saaxiibadii u yimiday yara u arko wuxuu kullay odayaashan aabahay bay u socdaane aabana waa kii raba inuu sii seexday bal u yar markaasuu aabo odagii hebel baa albaabka ku soo dhowe kolley aday kuu socdaane maxaa uu hurdaa ku dhabiyo macallinku markaa waayo macallinka xaafadda waayo waa aabbaha kii yaraa baa yidhi bal filimku dhigay aabbahay riwaayaduu samaynaya buu yidhi anigina been daa buu leeyahay isagina been buu ummadda kula dhaqmayaa buu yidhi مجتمع النوع عسى كورما مجتمع حقاق سنو حكو كيني كرنا أدوكو حقاق أبوها حقاقو هو يدوها حقاقتو هذا اللبدا حقاقان بعلمة ليهين إلهي عز وجل وقادر إن أبطك كوة حقاقجيو هذا مدحو ماذا الله باس فرهم يسميين ميين إن بقول كي بقول أبطك كوة توصان حكو تلقلين لأن السنة إلهي بعالم كسعته السنة إلهي ومعي إن نفعناته إن أي نفعنا إن ضبعت فعناته إن ضبعت ليدته إن دقاله حشو إن فقر يسبول كل نولاته إن عافمات قبته إن أي بوكاته من هذيك كو خدمة من هذيك وقت كوريسود هيسيد بقى الفرتنجر إلهي مكواحد لهلا يدل كأنه كله هو يدي يا أبهي حق ما كله حق يقصيه وحقات كلها ذي محوية هاي درير بان قرصدي بيل كهاليسيو ورماذا بيل لقسين مساعدة بيل تقسين لها ومسكحة دليرة دي نقار كنت فكرة سمانتا الفرتنجر بعد ذلك إذا صد الجر إلى أيمك كده على عسلته هاي هو يدي يا أبهي حق ما كله حق يعني هاي سيال أو مصاريف هاي قرآن مجتمع وانا أقسم بالربعين السمعين سيكون سمعيننا وأين الدين كشقينا آيات القرآن قال الربعين لقول دغمو الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وآيات علماء أي هذا حتى الدولة الإسلام أو شريعة الإسلام كطبق إيسا هذي دلتي تمادنا دينتي لقى شغيل لقى تجي مايو والله ولا شغل دينتي أمر بالمعروف دعوة للدين ما يبي كليه حتى الدولة الإسلامية هذي تمادو بنص هذه الآية مركب مجتمع وناكسن وين كشغيل ندين نبي صلى الله عليه وسلم ضد نوعيب ونبي قد حميدي ضدك الدنيا كنا لودن أي كعود بالإسلام بهين عربته حتى الدنيا أنت كلا ولا قومي سنة يكلم قومي سنة وايم محل قومي سنة دولكو قبير مله وبيال مله دولة واوين معها وحول دقته قيل لي دولكو صحراء وبدن يحي قبائل ويسكو عنان ضدك النوع عاصا محابل لقى قومي سنة فرس الروم انت كلا ادوك قومي سنة جزيرة العرب وابل اسكها يبا هنو سوق هنا هنو سوق تلابنا ضد ما هنا والدقاق بالله يقانين الدقاق ضدك النوع عاسها أي نبي الله محمد
عليه الصلاة والسلام إلهي كسو دح صاري دادكاس صدح يلا تسنى النبي مركو دح جوغي داد نوعية نقدمي كلها أرحم أمتي بأمتي أبا بكر بو نبي يقول أمت دايدا نيكا أقولنا حريصة بدن وأبو بكر نيكا أمت دايدا أمرك إلهي كوكا كان كو أذق وعمر أمت دايدا نيكا أقول حشوت كبدن وعثمان أمت دايدا نيكا علمك حق حكور ردستا أقول يقانا وعلي أمت دايدا هدي آمين وكجرن آمنا آمنك أمت دايدا وأبا عبيد أبو رسول كبيري أبو معاوية أبو نبي يقول وأنك أمت دايدا أقول دلقات بدن دلقات أبو در ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء سمدنا مهرين دلكنا مقادن نن أبو در كالرشاك بدن رسول كوري وأنا كان ولش النبي محمد وكرد حلي بدلي وايي سكست أديوتي مع الزمن كي معاوية نولش إنه بدله وش كديدي زمن كي عثمان علم الحلال وعلم الحرام نك أمد أقوى قوم بنا علم الحلال والحرام ومعاذ بن جبل برسول كوري جيس النمو براء بن مالك بن نبي الشيخية خالد بن وليد جيسي ديخ النمو عبد الرحمن بن عوف شن بقولها أو رؤوسه قشوا بدأ عدي أي سارنتهاي أيا كان عستدي ري مدينة نجا إيبي كان أنت يقصي بولي هاي عبد الرحمن عود هذا ماي أنت هيك بدل ما كو هيستا كو كلا يمدو أنت كو قاضو أنت هيك بدل ما كو هيستا كو كلا يمدو أنت كو قاضو أنت هيك بدل ما كو هيستا وأنت إنك بدل كويني ميز بالجيبي وكوهلي بولي وأنا هستمد إنك قاضنا وكما والله فقراء مساكين المدينة كنا الله خيبيه بولي كم بقولوا أول عفاف ضاد عفاف مباهتنا فضال بن عبيدك ربيعة بن كعبك أيكو قايرو كل يستا وصدح مع المدعو تانا عنن أو جدك جاجو ولا دعيان أي دتك وشيغن باهيد ودي أورنجرين مركا دتك ورجوغان ويدولا عدينيين مركا إلهي ورجوغان ويجرين باهي ما بشيغن أيام با علم الحديث نك أقوى لا ينتبه أمد النبي أبو هريرة أيها أفك النبي محمد وحكم الصبح إلا قلبي يسوق حفيده مركبة تذكر نوع عاسى يا صوص عليك كلها النبي جانا محمد صلى الله عليه وسلم تذكر الدنيا وقو خيانة بنا وهاي النقدين تذكر الدنيا وقو أمانة في عم تذكر الدنيا وقو ظلم بنا وهاي النقدين تذكر الدنيا وقو نحرست بدن تذكر الدنيا وقو بين بنا وهاي النقدين dadka adduunyada ugu rusheega badan dadka adduunyada ugu gaalnimada xuma dadka ugu diifi aan bay noqdeen dadka ugu akhlaaqda xuma dadka ugu akhlaaq wanaagsan bay noqdeen dadka adduunyada ugu faqiirsana dadka adduunyada ugu qanisan bay noqdeen dadka adduunka ugu jahlisana maxay noqdeen dadka adduunka ugu cilmi badan ilaa nabiga ka shaqeeyay sallallahu alayhi wasallam marka haddaan doonayno in dadku inoo hagaagaan إنه ضلكوا إنه هجاج هذان دونينه وين ضدكوا وحيكوا هجاج لهين عن كشقينا ضدكوا محيكوا هجاجان ضدك اللي بس شيء بيكوا هجاجان بعلماء دوليين ودعوة ضدك إن حق إله الله جيره مساجد الله جيره آخرة الله جديو إله عالم دي سلقة عدعيو إيه ينقف بين آدم كدين الله برا الدعوة والعلم بعلماء دوليين هذان دون الدين توينه في الدنا دعوة دا السببة هذان دون الدين توينه ضدكينا باقي أي كسر نقطنا وين مضى علم الشرع وين لبراء لبدا أنا ما كلام مرمان دعوتنا علمك كمان مرمتو علمنا دعوتك كمان مرم إن شاء الله ده هذا يا وديار إنه لبدا كشغل إنه دعوته أوبحه وروش قبحه وهذا إصلاحي هل كانت كإصلاح إلهي بدو دوان دبنا اللصنا إلهي سبب تادو كسو هذين ضد بدن الدال على الخير كفاعله ضد بدن ودسلاد هاي فوقيهين أيا مركز جماعات دو تجان إلهي توبة دوافجيا إن شاء الله يا وديار مركز إنه وقت جيس الدين تكون بحيو أفر بلاد أفر تنعش الله ببلاد أنت تكريسان إن شاء الله هذا يا وين كنا دعوة وضيان والمؤمنون والمؤمنات
بعضهم أولياء بعض يأمرون أسرد الدنبا markay usrad la samaynayo shaqada ugu horeysa isku kaalmaysanayaan baa Ilaahay yiri waa inay diinta ka shaqeeyaan reer marka la dhisayo maqsuudku ma aha inay shahwadooda gutaan kaliya maqsuudka zawaajka waa inaan fahamnaa usrad wanaagsan hadafka loo sameeyay waxa weeyaan waa inay wax tar umada u yeeshaan maxaad umada wax ugu taraysaa marka dadka wanaaga far xumaha dadka laga reebaya salaaday oogayaan zakaday la imanayaan wanaaga ilaahay iyo rasuulkiisa ay adeecayaan duulka sidaa yeela ayaa ilaahay u naxariistaa baa ilaahay quraanka ku yiri da soo diyaar ma in sha Allah sa soo diyaariya habeen dambana in sha Allah markaska waa fikradiinka ka soo qayb gala dambigeena Allah dhaaf dambiga waalidiinteena Allah dhaaf diinta Allah inoo macaaneeyo maralkeena Allah shaafiyo mawtaadkeena Allah u naxariisto isma hadeyn kara Allah ina hadeeyo dad badan oo ehelada walaalaheena oo qaraabadana wada xanuunsan Allah shaafiyo kurbadana qof walba halkay ka haystaan Allah ka faydo dhalinyaradena wiilalay gabdhaha Allah inoo hadeeyo muslimiintana muwaafaqeen midnimada Allah siiyo amni iimaankeena Allah inoo adkeeyo sallallahu alayhi wa sallam